بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. saaka waxaan aadi doonaa xagga iyo Falastiin. مع انطلاقة عام 1900 khilaafka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil wuxuu bilowday markii Britain la wareegtay Falastiin. waxaa markaa bilow ahaa dagaalkii koowaad ee adduunka. Britain waxay kala wareegtay Falastiin taliyihii bariga dhexe ee Cusmaaniyiinta. dhulkan waxaa deganaa Yuhuud tiro yar iyo Carab badan. intii u dhaxaysay 1920 ilaa 1940 waxaa soo badanayay Yuhuudda u soo qaxaysa dhulka Falastiin, iyaga oo ka soo qaxaya dalalka Yurub oo markaa ay dagaal ka jireen. waa la yaab runtii dalad qaxoonti ku timi oo lagu soo dhaweeyay hadhow ma ku qabsan lahayd dadkii lahaa. 1947 qaramada midoobay ayaa soo saaray go'aan lagu kala jarayo Falastiin oo laga dhigay laba dawladood oo kala ah, Israa'iil iyo Falastiin. Falastiiniyiintii waxaa la siiyay dhulkoodii 45%, halka Yuhuudiina la siiyay 55%. balse caalamka iyo maxkamadda caalamiga ah ayaa deegaamintan ku tilmaamay sharci darro, waxayna sheegeen inay mamnuuc tahay in dal haysta dhul laga dul sameeyo dal aan dhul haysan. Maraykanku doonista ay Israa'iil dhulka ku doonayso kolkii hore wuxuu tilmaamay inay tahay sharci darro, balse wixii ka dambeeyay 1980 wuxuu ka laabtay go'aankii tilmaamayay sharci darrada. 1967 dagaalo ka dhacay bariga dhexe ayay Israa'iil ku gacan sarreysay, waxayna bilowday deegaamin inay ka samayso meelaha ay qabsatay oo ay dad ku beerto. waxaana ka mid ahaa deegaamadaas daanta galbeed, bariga Qudus iyo buuraleyda Golan Heights. daanta galbeed iyo bariga Qudus waxaa hore u haystay Jordan tan iyo dagaalkii 1948 ilaa 1949 ee u dhaxeeyay Carabta iyo Israa'iil. sanadkii 1967 dagaal dhex maray Masar iyo Israa'iil ee Israa'iil ku qabsatay bariga Gaza waxayna ka samaysay deegaamin, balse deegaanka waxay burburisay markii ay ka baxday marinka Gaza 2005. sidoo kale waxay deegaamin ka samaysay gacanka Sinai oo ay ka qabsatay Masar, balse isna waxay burburisay sanadkii 1982 kadib markii uu heshiis dhex maray Masar iyo Israa'iil. waxaa kale oo jira deegaamin badan oo ay ka samaysay buuraleyda ay haysato ee Golan Heights, kuwaas oo ay ka qabsatay Suuriya dagaalkii 1967. deegaaminta ay ka samaysay daanta galbeed ayaa lagu qiyaasaa inay tahay 2%. deegaaminta ay Israa'iil ka samaynayso daanta galbeed iyo bariga Qudus waxay ubuucda ku hayaan khilaafka u dhexeeya Israa'iil iyo dalalka caalamka. saaxiib, waxaa laga yaabaa inaad ku yara wareerto erayga deegaamin, balse deegaaminta waxaan ka wadnaa magaalo intii dagaal lagu qaado marka la qabsadan laga raro dadkii lahaa oo lagu bedelo dad kale. arrinkan oo ah arrin runtii gurigaaga adoo arkaya ayaa waxaa la siinayaa nin kula fac ah. isku dhacyo fara badan ayaa dhex maray shacabka Falastiin iyo Israa'iil, balse sanadkii 2021 Israa'iil ayaa u diiday inay shacabku ku tukadaan masjidka barakaysan ee Al-Aqsa, halkaas oo ay isku dileen shacabkii iyo booliskii Israa'iil. hay'adda Bisha Cas ayaa sheegtay dadka shacabka ah ee halkaa ku waxyeeloobay inay gaadhayaan 700 oo ruux. Israa'iil muddo sanado ayay ku hawlaneyd sidii ay u qabsan lahayd dhulka Falastiin, waxayna ku dadaalaysay inay qabsato goobaha qadiimka ah sida Qudus. haddaba 1980 ayay Israa'iil shaacisay inay guud ahaanba qabsatay dhulkii Falastiin, caasimadooduna ay tahay Qudus. arrinkan ayaa ka hor imanaya shuruucda caalamiga ah, waana sababta uu Maraykanku xilligaa wixii ka dambeeyay uu uga laabtay inay sharci darro wado Israa'iil, sidii aan ku soo sheegnay muuqaalkeena bilowgiisii. si kastaba ha noqotee, waxaa jira urur loo sameeyay inay iska caabiyaan Israa'iil, waxaana lagu magacaabaa Xamaas. laba ujeedo ayaa loo aasaasay ururkan: inuu iska caabin uu fuliyo garabkiisa milatariga iyo horumarinta bulshada. sanadkii 2005 markii Israa'iil ka baxday marinka Gaza ayaa ururka Xamaas wuxuu ku guuleystay gacan ku haynta Falastiiniyiinta. sanadkii 2006 wuxuu ku guuleystay doorashadii baarlamaanka. tani markaas ururka Xamaas wuxuu la galay Israa'iil 3 dagaal. xukuumadda Tel Aviv iyo Masar ayaa go'doomiyay marinka Gaza si ay ugu cadaadiyaan ururka Xamaas inay joojiyaan weerarada. haddaba ururka Xamaas gaar ahaan garabkiisa milatariga ayaa argagixiso waxa uu aqoonsan Maraykanka, UK iyo dalal kale oo Yurub. kadib doorashadii ururka Xamaas, Israa'iil iyo saaxiibadeedii galbeed ayaa Xamaas la beegsaday cunaqabatayn dhaqaale. Israa'iil ayaa duulaamada uga yimaada marinka Gaza dhammaantood dusha ka saarta ururka Xamaas.
bishii December 2008 Israel waxay qaaday duulaan ay ugu magac dartay Operation Castile si ay u joojiso gantaalada laga soo ganayo marinka Gaza. Dagaal socday 22 maalmoodna waxaa ku nafwaayay dad gaaraya 1313 qof oo isugu jira Falastiin iyo Israel. sidoo kale duulaan ay qaaday 2012 ay ugu magac dartay Operation Pillar of Defense. dagaal socday 8 maalmoodna waxay ku leysay dad rayid ah oo gaaraya 170 qof. sidoo kale 2014 dagaal socday 50 maalmood ayaa Israel ku leysay dad rayid ah oo tiradoodu gaarayso 1462 halka Israel ay kaga dhinteen 67 askari. tan iyo dagaalkaasna waxaa jiray weeraro kala duwan oo ay qaadeen, balse waxaa guuleystay dhowr xabad joojin oo ay mas'uuliyadeeda lahaayeen Masar, Qatar iyo Qaramada Midoobay. ururka Xamaas wuxuu tagay gantaaladoodii, balse dadka 2 milyan ee ku nool marinka Gaza ayaa laga dayrinayaa xaaladooda bini'aadanimo, waxaana la sheegaa inay daciif ku tahay korontada iyo biyaha iyo dawaduba. si kastaba ha noqotee, daawadahayga qiimaha mudan oo Falastiin waa dad muslimiin ah, waxayna ilaalinayaan masaajidka saddexaad ee barakaysan. mas'uuliyaddan ay keligood qabteenna waxaa iska lahaa muslimiinta oo dhan, xataa adiga iyo aniga. Falastiin waxay u baahan tahay taageero siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid ciidanba. waxyaalaha la yaabka ahna waxaa ka mid ah dowladaha Carabta oo la doonayay inay garab istaagaan Falastiin ayaa qaarkood Falastiin waxay saareen cunaqabatayn. run ahaantii reer Falastiin waa mujaahidiin raba inay u dhintaan ilaalinta dhulkooda, gaar ahaan masaajidka barakaysan ee Al-Aqsa. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. inta aynu muuqaalkan ka xiiso badan ku kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo.